xaafadda Sayladu waxay ka mid tahay xaafadaha waaweyn ee ku yaala magaalada Burco. Saylada magaalada Burco waxay ka mid tahay goobaha ganacsi ee ku yaala magaalada Burco isla markaasina ay ka ganacsadaan dad badan oo intooda badan ay badan yihiin dad danyara. Waana goobaha dawladda hoose ee magaalada Burco ay sanadkii ka qaado cashuuraha ugu badan ee soo gala dawladda hoose. Dadweynaha iyo ganacsatada ku dhaqan xaafadda Saylada oo saaka warbaahinta la hadlay ayaa waxay cabasho ka muujiyeen xashiish buux dhaafiyay goobtan oo u dhow goobaha ganacsi ee ka ganacsadaan dadka subax u soo shaqo taga Saylada magaalada Burco. waxaana ay sheegeen in maamulka dawladda hoose ee magaalada Burco ay dhow jeer u gudbiyeen cabasho ku saabsan sidii xashiishka looga nadiifin lahaa balse ay maamulka dawladda hoose xilligaasi aanay ka soo jawaabin. sidoo kale waxay ka hadleen saribadii sanadkii hore ee maamulka dawladda hoose ee magaalada Burco ay xariga ka jireen isla markaasina ay sheegeen inay ku ganacsan doonaan dadka ku ganacsada Saylada magaalada Burco iyagoona sheegeen in xilligaasi saribadaasi xidhan tahay isla markaasina ay noqotay goob xashiishka lagu daadiyo. iyagoo arrimahaasi ka hadleen waxa daladoodii ka mid ahaa waxaan ku xabaanaynaa kudaafada xaafadihii oo dhan ayay xumaysay oo ay maxaan ku raadayay ay nadaafadii ka dishay magaaladii indhaheedii bay maxaan ku raaday xumaysay waxaan doonayaa bahashayna laga xaadho mid kalena waxaan leenahay in saribadan halka kudaafadu taalo de suuq baa laga furaya saribad baa saribada waxaan doonaynaa waxa ka dhiman in loo dhameystiro oo miisaskii baa ka dhiman oo waxyaabihii kale meheradii kala ka dhiman oo bacdayaashii baa ka dhiman oo dukaanadii baa ka dhiman oo in waxa la doonayaa suuqa dhan in la dhameystiro wixii ka dhiman suuqana loo dhameystiro dadkana de bacadka hoganayana de sarbada loo dhameystiro aan lagu walcinde waxay ka taala meesha dan loo furay mid in kudaafadaana laga hagaajiyo hay'adaha de fanka bixiyaan u leenahay laga hagaajiyo de dawladda hoose malaha iyadu dhaqaalaha adagna ma lahayn halkan aynu taaganay waa Sayladii Burco gaar ahaan saribadii dhawaan laga hirgeliyay Saylada Burco meeshaan taaganahay iyo saribada inta isu jiraan wada aragtaa saribadan waxa loo dhisay dadku ku ganacsadaan laakiin ayaan daro hatta laan saribadii ma furna qashinka iyo kudaafaduna inta u jiraan iyo waxa yaala waa arkaysaan golaha deegaanka ee degmada Burco waxa loo doortay xilkii loo doortay aynu u dooranay way gabeen waayo tusaale waxa kuugu fudan adoon meel kale oo magaalada tagin Soomaalidu waxa tiraahaa inta gudaafada ku jirto ayuu ku jiraa cudurku ku jira marka waxaanu leenahay Burcay Burcow golihii deegaanka waa aragtaan saribada ay dhisayna waa aragtaan ayaan darrada iyo qashinka ka buuxa Saylada Burco halkan baynu kala soconaa madaxweynaha qaranka waxaan ugu baaqaynaa adeerow inamada shaqayn maayaan 22kan inay meesha jooga shaqayn maayaan adeerow kala dir waxaan ugu baaqaynaa adoonnahay shacabkii magaalada Burco golaha fadhiidka in la kala diro alxamdulillaah rabbil caalamiin halkan insan u jeednay imka halkan waxa weeyaan waa saribadii dhawaan laga yeegleelay duleedka Saylada xoolaha magaalada Burco halkan u jeednana waa xaruntii qashinka waa xaruntii xaafadahan iyo aagan oo dhani ay qashinka ku soo ururin jireen waxa jirta golaha deegaanku shayga ugu koobaad ee uu xil saaran yahay waa bilixda iyo nadaafadda deegaanka weeye waliba gaar ahaan magaalada 22 xildhibaan baa doortay 22 xildhibaan laba tan oo qashin halka yaala way qaadi kari waayeen runtii dawladda hoose horta kow xildhibaanada 22 waxaan ugu baaqayaa dawladda doortay umad baa idin igmatay maalinta akhrina waa la idin weydiinayaa qashinkan iyo nadaafadanna umad bay dilaysaa iska daa wax kale oo xayawaankii baqtiyay ama xoolihii gawaarida ku soo dhex baqtiyay ayaa la soo dhigay maanta waynu aragnaa muddo imka 6 sano ku siman ayay waxa noocaasi laga hagaajin lahaa halka kudaafada qadiyaan baan ku taaganay indhahay naga riday alaabadii bay naga wasakhaysay qarmuunka dabaysha nagu soo qaadaysa waqtiga la dhigayaa qadiyaan ilaahay baan ku taagnaa dawladda sharafta waxaan ku codsanaynaa inay naga nadaafadso naga qaado oo naga gurto alaabtii iyo wixii aan meesha ku haysanay aan ka ganacsanay naga fidruba naga qurmay intaana waa la gurayaa indhuuna waa naasmin xitaa xashiishkaas ugu soo buuxiyaa markaanu tamar kala weynay subax kasta waa lagu soo kalahaa waanu gubnaa dawladda hoose waanu u tagnaa waxaanu ku ninaanaa kaalay xashiishka naga qaada waa yahay baana la yiraahdaa ciidan boo naga daba timaadana ma aragno marka waxaanu leenahay maamulka magaalada in xashiishkan u yimaadaan oo arkaan oo indhaha aanay ka jeedin oo shaqaalaha ay u soo diraan yaanu ka codsanaynaa waxaafada aad waxay uga cabanaysaa xashiishka yaala
saa la soo sheegay xashiishka markuu istuure ee batana waan gubnaa marka waxaan ka codsanaynaa annagoo cidna habaarayn cidna aan caayaynin waxqabadka dawladda aan maagaynin inay dawladdu wax ka qabato oo dawladdu xashiishka noo yaalla aan mar walba ka cabanayno ay naga qabato wax nagala qabato taasaan ka codsanaynaa xaafadda sayladda haddaanu nahay ama xaafadda maxamed cali waxaa dhib nagu ah kudaafadii iyo meeshii laga ganacsanayo sayladdii oo isku mid ah halka ugu badan dakhliga ugu badan ee dawladda Soomaaliland ama dawladda hoose dhaqaalo ka soo galana waa sayladda halkii marka waxa weeyaan ayaanan haynin wax ma garanaysa naga hagaajiya oo naga nidaam gareeya golo kasta wuxuu leeyahay meeshiisa uu hagaajistaa uu wanaajiyaa haddaad marka eegto golaha berbera ama dawladda hoose berbera say u hagaajiyeen iyo siday ma garanaysa ay u nidaam gareeyeen wadankooda dee waxa weeyaan laba wadan oo isku mid ah moodudba cabdiraxmaan cabdilaahi xasan camaar telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Burco